khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan. haddii sidaasi dhici weydo waxaa mas-uuliyadda qaadaya ciddii qaladkaasi samaysa. haddii guddoomiyaha fiid uu daraad dhahay kursigaasi waa la hakiyey, waxaa ceeb ah oo foolxumo ah in guddiga sida baydhabo guddigii federaalka loo dira halkaas iyo kii khilaafaadkaba ay ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowladda goboleedka ay hoos tagaan. ma hoos tagtiin, hawsha idinkaa iska leh. haddii hawsha la joojiyana waa inaad maqashaan, dhagahana aada u furtaan. guddiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogtaynta hufnaanta doorashada, kana qabtaan guddiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan, waana in ay warbixin joogtaa u soo gudbiyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuq maasuq iyo wax isdabamarin lagu arko. guddiga labada guddi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga, wixii musuq maasuqa oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga, iisoo gudbiya. cid idinku xadgudbi karta ma lahan. guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeys inaan u sheego halkan. guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardargeliyaan, xaqiijiyaan cadaalad si doorashada u noqoto mid lagu kalsoonaan karo. guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo, waxa la soo gudbiyo, waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan. sidaa darteed walaalayaal guddiyada waa idinkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa lidin siiyey, waa lidin aaminay, waa idin dhaariyey. haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliyeed idin fiirsanayo. sidaa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan, waa idiin sheegayaa, ergaa la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah. doorka guddiyada aan idinkugu celiyo waa hubinta in shuruudaha ergada la soo buuxiyey oo keliya. maamulada madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada wax door ah kuma lahan soo xulidda ergada. marka dhagihiina fura, maanta arintaas meel xasaasiya maraysa. qofkaana gudul warningkii ugu dambeeyey waay, warningkii ugu dambeeyey aan siinayo waay. qofkii aan arko iyadoo war laga soo saaray qof kaloo ka dhinac hadlaayo, warqadeeda hore ha u soo qaadato, ma matasho. taasaa idin sheegaya. dekareeto xafiis ra-iisul wasaare kusoo baxdeen. shacabka soomaaliyeed uma dul qaadanayo, xukuumaddeedu uma dul qaadanayso corruption.